السلام عليكم ورحمة الله. دقنين وسوبحي مامولها نادية برجي هوري جوجي شري إيري جورزاكي هيشيس كاي لصو قالين كريستيانو رونالدو وخلق الكوا بورو سيستم كي النظام كوكوس عنشري ناديجو ورجيس كوي على شبكة إنترنت ككوتال أو لينادو ميديا سيت تلياني هيا ورجيس كاسيو سعدي إنه maamulahaas area Gozani uu ku cadeeyay halkaas uu ka yiri muumaan barnaamijku inaan helno ciyaartooyada ugu wanaagsan caalamka ciyaaryahan hadaan nahay ilaa bariye hore Ronaldo ninka wuxuu ka mid yahay ciyaartooyada caalamka ugu qaalisan ugu wanaagsan waxa uu kale ku daray hambalyo Juventus ciyaartooy aad u qaaliyaad hesheen Ronaldo wuxuu noqon doonaa mid u fiican kubadda Talyaaniga iyo naadiga Juventus ba sababtoo tahay liiga Talyaaniga ma buu helin marnaba ciyaartooy aad u qaaliyo qiimaha leh waxaanu baranay in xidigada waaweyn iyo magacyada la ciyaartooyadiina soo mari jiray berigi hore in ay ka tagaan Talyaaniga iyo liigaba shaki kaliya ee igu jira imika naadiga Juventus wuxuu lahaan jiray xeer ama xad oo lacagta ku bixin jiray mushaharka isla markaana khilaaf ba ka dhalan jiray lacagahaas iyo heshiisyadaas la gali jiray ciyaartooyada marka nidaamku ku socdo Talyaanigu waa inuu ku dhacaa isla markaana ciyaartooyga cusub ee Cristiano Ronaldo hadii kale mashaakil ba ka dhalan doona naadiga iyo heshiiskaas la galeen dhanka kale Cristiano Ronaldo uu ka cadeeyay inuu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galay liiga Talyaaniga siba naadiga hogaanka u hayay Juventus iyo inuu la shaqeeyo Massimo Allegri maamulaha cusub ee hadda jooga ama tababaraha Juventus waxa uu kale u sheegay inaan waqti badan la qaadanba go'aanku uu soo qaatay inuu tago Juventus kana tago Real Madrid taas oo si tilmaamay uu doonayay inuu taariikh kaga tago kubadda cagta uu la ciyaaro naadiga hogaanka uu hayay Juventus waxa uu kale ku darayna waan ku faraxsanay hadda waan diyaar baan u hay tartanka Talyaaniga dhexyaay dhiirigelin fara badan baan haystaa diyaarna waan u hay waan ku faraxsanay Allegri tababarahaas qaaliga ah in uu ii noqdo macallinkayga Juventus runtii waa naadi aad u qaali ah waan ku faraxsanahay mar walba anigoo da'daasa inaan ka ciyaaro naadigaas Juventus ku mahadsan maamulayaasha naadiga AC chance ay fursadda ciyaaro halka waxa uu kale u sheegay Cristiano Ronaldo inuu ku faraxsan yahay muddadii uu ku soo qaatay naadiga hore Real Madrid ee 9 sano ahayd taas oo uu ka yiri halka inay ahayd waqti aad u qiimo leh oo wanaagsan ku soo qaatay naadiga Real Madrid laakiin hadda waxaan bilaabayaa marxalad cusub codaalkayga kubadda cagta naadi cusubna waan ku bilaabayaa Talyaaniga waxa kale uu nuucadeeyay wakiilka u gaarka ah James Rodriguez ku noqonaya naadiga Real Madrid kaasoo sanadkii hore la amaahiyay ama uu ku maqnaa naadiga Bayern Munich Almaani muddadaas oo ahayd 2 sano ayuu ahayd heshiiskaasi oo amaaha halka warbaahinta qaar ay ku cadeeyeen ay ilaaleen inuu James Rodriguez ku noqonayo Real Madrid kadib markaa ay cadaatay inuu tagi doono Zinedine Zidane ee Faransiiska waxa kale uu cadeeyay James Rodriguez inuu Real Madrid aanay dhameyn karin heshiiskii la galay muddada 2 sano tii uu xil ciyaareedkaasi uu noo dhamaado James Rodriguez wuxuu ka qayb galay 39 ciyaarood oo Bayern Munich la ciyaaray koobka kala duwan حارس مرمى منتخب بلجيكا عن قيامه بإغلاق التلفزيون في الدقيقة الأخيرة لمباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 كي لا يشاهد تتويج منتخب الديوك بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وقال كورتوا في تصريحات لقناة RPTF شاهدت النهائي لكن أغلقت التلفزيون في الدقيقة 94 شعرت أنني لا أريد مشاهدة الاحتفالات الفرنسية وأضاف قمت بإعادة فتح التلفزيون على الفور حين أخبرني زملائي بفوزي بجائزة أفضل حارس وبات كورتوا المرشح للانتقال إلى ريال مدريد أول حارس بلجيكي يفوز بجائزة أفضل حارس في كأس العالم منذ عام 1994 حيث حققها مواطنه ميشيل بورودوم رغم خروج بلاده من دور 16 وأضاف سعيد أنني ساعدت منتخب بلادي في لحظات كثيرة على مدار كأس العالم كنت أريد الذهاب إلى أبعد خطوة ممكنة